ilaa 5 xubnood oo geystay weerarkii ka dhacay xabsiga dhexe ee Xamar ayaa la toogtay. Dawladda ayaa war rasmi ah ka soo saartay. Shakhsiga halkan sawirkiisa idinkaga muuqanaya oo caan ah ayaa ka soo dhex muuqday meedadka xubnaha weerarka ka dhex geystay xabsiga dhexe ee Xamar. Muxuu ku eedeysnaa halkees laga soo qabtay goorma ayuusa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya uu ka soo muuqday. Qasaare intee leeg ayaa gaaray ciidankii howlgalkan soo afjaray. si la mid ah maxaabiistii lagu dul dagaalamay qasaaraha gaaray ayaan muuqaalkan idinku soo koobi doonaa. waxaana Yuusuf Maxamed Axmed haddii aad igu cusubtiin fadlan ku soo biira bartayda Facebook oo ka mid noqdo saaxiibada igu xiran si aad halkan uga heshaan warbixino muuqaalo had iyo jeer aan halkan ku soo baahino. dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa goordhow waxa ay warbaahinta dawladdu ka shaacisay inay soo afjareen howlgal saacad qaatay kaas oo gabi ahaanba lagu soo ka tirsan ururka Al-Shabaab kuwaas oo dhex fuliyay gudaha xabsiga Xamar. ilaa 5 xubnood ayaa la sheegay in weerarkan ay ka dhex fuliyeen xabsiga dhexe Xamar. weerarka ayaana ku bilowday qarax laga dhex maqlay gudaha xabsiga dhexe oo kol hore maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay ku xukuntay dil toogasho ay weerarka fuliyeen dhammaantoodana la toogtay. waxaa ka mid ahaa Liibaan Cabdullaahi oo ah shakhsiga halkan sawirkiisa idinkaga muuqanaya 18 Abriil ayuu ka soo muuqday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya wuxuu door muuqda uu ku lahaa weerarkii ka dhacay hotelka Xayaat ee magaalada Muqdisho oo ku yaala kiiloomitir 4. sawirro ay baahisay warbaahinta qaranka ayuusa ka soo dhex muuqday Liibaan lana sheegay inuu ku dagaalamayay qoriga AK47. waxaa sidoo kale jirta in qasaare uu askarta howlgalkan qaybta ka ahayd ee soo afjartay xubnaha shabaabka ah ee weerarka ka dhex fulinayay gudaha xabsiga dhexe ee Xamar. ilaa 2 askari ayaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen. 4 ka mid ah maxaabiista ayaa si la mid ahna ku geeriyootay intii uu socday howlgalkan. tirada guud ee dhimashada xabsiga dhexe ee Xamar ayaa ka dhigan 11 qof oo ay ku jiraan oo shabaab ka tirsanaa weerarka fuliyay 4 maxaabiis ah iyo 2 askari oo howlgalka qayb ka ahaa. waxaa sidoo kale jira dad kale oo iyana ku dhaawacmay. war soo baxaya ayaa sheegaya in saraakiil u xil saarneed amniga xabsiga dhexe ee Xamar iyana la xiray kuwaas oo ay si rasmi ah baaris ugu wadaan hay'adaha ammaanka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. asluubta Soomaaliyeed ayaa warbaahinta isugu yeeray oo goordhow la filayaa in warbaahinta uu la hadlo faahfaahinna uu ka bixiyo waxa ka dhacay xabsiga dhexe ee Xamar. su'aalo badan ayaa laga keenayaa sababta fududeysay in xabsiga dhexe ee Xamar xubno ka tirsan shabaab ay gudaha la galaan isla markaana ay keentay inay ka dhex dagaalamaan iyagoo saacad ku dhow dagaalamayay. waxaa xabsiga dhexe ee Xamar ku jira dad loo haysto kiisas kala duwan. ilaa dhamaadka muuqaalka haddii aad ila soo gaarto waa kaaga mahad celinayaa. wixii warar ay ku soo kordha halkan ayaynu kugu soo baahin doonaa. nabadgelyo.